Asalaamu calaykum. Ku soo dhawaad Qurac Tech. Haddaad rabtid inaad ogaatid sida nalkan u sameeyey, sii fiirso videogan. Nalkan aad u jeedid waxaa la kala doorsan karaa kalaro kala gedisan sida caddaan iyo gaduud. Arduino aan isticmaalaynaa saan nalkan kalaradiisa u kala bedelano. Sida ugu fiican oo aan aqaano wax lagu barto waxa waaye in project la sameeyo. Sidaa darteeda waxaan sameeyey video serieskan oo ku saabsan sida nalkan aan u samaynayno aan u bixiyey smart nal. Qaybta koowaad wuxuu ka hadli doonaa nashqadaynta schematiga. Qaybta labaad oo wiigga soo socda aan samayn doono insha Allah wuxuu ka hadli doonaa sida PCB-ga loo sameeyo. Qaybta saddexaad oo wiigga kale ku xiga aan samayn doono wuxuu ka hadli doonaa sida Arduino-ga aan u programmeyn lahayn. Qaybta afaraad wuxuu ka hadli doonaa sida waxyaalaha dhan la isugu xirayo. Hadda waxaan fiirinaynaa waxyaalahan u baahannahay inaan ka fikirno intaanaan smart nalka aanan nashqadaynin. Maadaama korontada guriga soo gasha ay halis tahay oo loo baahan yahay in la iska jiro, waxaan ka bilaabayaa digniin. Waxaan kaloo ka hadli doonaa waxa igu dhaliyey fikraddan rabno inaan rumayno. Software-ka loo isticmaalo electroniga in lagu nashqadeeyo oo KiCad la dhahayo, isagana wax yaraan ka taabanaynaa. Ugu dambaysna waan nashqadaynaynaa schematiga. Marka ugu horreysa aad iyo aad ay muhiim u tahay in la iska jiro korontada AC-ga la dhahayo oo guriga soo gasha. Fadlan ha isku dayin inaad samaysid waxaan aan ka hadlayno maantay haddaadan cilmi u lahayn korontada sida la isaga jiro. Waa 110 volt mase 130 140 volt, taas oo runtii qof dili karta. Marka aad iyo aad ay muhiim u tahay in la iska jiro. Tan anigu aan sameeyey waa midaan anigu isugu talagalay oo aan laga soo baarinin halista ee ka imaan karta. Maadaama aan lasoo baarin oo aan lasoo xaqiiqsan halis inay ka imaan karta in kaleeto, waxa ugu talagalay kaliya lee waxa waaye aniga in inspiration loo isticmaalo. Waxa igu dhaliyey waxa waaye aniga inaan sameeyo nalkan kalarkiisa la bedelan karo. Laba ilmood aan leeyahay, habeenkii markii la gaaro oo mugdi noqoto ayay markay soo kacaan cabsadaan. Qolka mugdiga ka cabsadaan marka nalka caddaanka uma daari karno. Midda kale aan samayna marka waxay ahayd nalkooda qolka ku jira wuxuu leeyahay 3 guluub meel laga gelin karo. Guluub nal cad aan noogu jiray. Markii dambe mid gaduud aan ku soo darnay. Kan gaduudka markaan ku soo darnay ayaa waxaan samayn jirnay habeenkii markii la gaaro oo ay seexanayaan ayaan kan cad ka furi jirnay si ay kan gaduudka ugu daarnaado eesa markay soo kacaan habeenkii saq dhexe eesan u cabsanin. Marka waxaa dhacda ayaan markaan wadnay nalkii oo habeen kastana markay seexanayaan aan furno subaxiina aan gelino, nalkii meeshii guluubka looga xirayay ayaa xoogaa iska dhammaata. Marka meel saddexaadaa jirtay, tii saddexaadaa nalkan aan u raray. Mayadiina markii oo aan meesha kale u rarnay waxaan ogsoonaa inay dhici doonto sidii kii horeeto u halaabay inuu asna u halaabi doono. Marka waxaan ku fekeray malaha waxaa fiican inaad samaysatid adiga wax nalka aad ka xakumi kartid midka kuu daarmaya. Marka nalalka dhan meesha laga xakumayo waxa waaye meesha nalka laga daaro caadiga. Markii nalka la damiyo la daaro, mar kale la damiyo oo la daaro, nalka cad ayaa daarmaya. Markii haddana mar kale la damiyo oo la daaro, kan gaduudka daarnaanaya. Sidoo kale 2 jeer in la damiyo oo la daaro waayo sidoo kan caddaanka u daarmo. Inta kale kan gaduudka masaa daarnaanaya. Fikraddaan rabnaa inaan rumayno waxa waaye horta kow nalka amase fiilooyinka soo gelaya meesha nalka lagu xiro waxa waaye 2 fiilo. Midna waxaa la dhahaa live, midna waxaa la dhahaa neutral. Fiilada markay soo galaan midi waxay ugu gudbayaan mid horta wuxuu daarayaa nalka gaduudka ayaa toos loogu isticmaalayaa, kaas oo aan iftiinkiisu saaid ahayn marka iskana daarnaan karo iska caadiya. Iyo kan caddaanka. Kan caddaankaahi sidiisaba waxaan samayn karnaa waxa waaye fiiladiisii oo soo galaysay nalka caddaanka ayaan mid ka mid ah kala goynaynaa. Kadib gudihiisa waxaan gelinaynaa switchkii. Switchkaas oo aan ka xakumayno Arduino ka xakumayno. Arduino Nano kan la dhahayaan isticmaali doonaa maadaama Arduino Nano uu yar yahay
oo waxaan u baahanna noo qaban karo. teeda kale maadaama Arduino Nanogu nalkan switchkan uu daminayo oo daarayo ka badan uu samayn karo, waxaan kaloo ku daray inaan Bluetooth module geliyo. Bluetoothkaas oo noo ogolaan kara telefoonka inaan ka galno, kadib aan nalka inuu daarnaanayo iyo inuu damin karo ka xakumi karno telefoonkeena. midda saddexaad oo ah ilmaha qolkooda waxaan fiirin karnaa kulayl inuu yahay mase qabow inuu yahay, taasoo aan u isticmaalnay temperature sensor, temperature and humidity sensor. macnaheedu waxa waaye qolku kulaylkiisa ayuu noo sheegayaa iyo hawada qoyaankeeda. marka temperature and humidity sensorka waxaa la dhahaa, kaan isticmaalayno waxaa la dhahaa DHT11. Bluetooth modulekana waxaa la dhahaa HC06. AC to DC converterhan oo inta ku jirana kaasina waxa waaye kan Arduinoga powerka siinaya. Arduinogu maadaama uusan ku shaqayn karinin korontada guriga soo gasha oo voltagekeedu yahay 230 240 ma ku shaqayn karo. marka waxaan u baahannahay DC inaan ka dhigno, teeda kaletana hoos u dhigno. marka modulekaan isticmaalaynaa oo la dhaho AC to DC converter. marka nuuca uu yahay ayaa kan ah. switchkan aan isticmaalaynana waa kan. switchkan oo ah maadaama relay la isticmaali karo mase waxyaalo kala gedisan oo badan la isticmaali karo, annagu waxaan isticmaalaynaa wax la dhahayo solid state relay. solid state relaygu macnaheedu waxa waaye ma ahan wax mechanically dhaqaaqaya ama qaylinaya mase sharqar samaynaya. faa'iidada kale uu leeyahay kani waxa waaye wuu ka yar yahay, haddana waqti badan ayaa la isticmaali karaa, sanadyo badan uu ku haynaya, maadaama wax dhammaanaya aysan jirino maanta dhan mechanically horay gadaal u dhaqaaqaya. waxaan isticmaali doonaa softwareka la dhahayo KiCad mase KiCad qofba suu u yaqaano. softwareka KiCad waxaa loo isticmaalaa in lagu nashqadeeyo electroniga, schematiga iyo PCB-ga. PCB-ga dib ayaan u fiirin doonaa. maanta annagu schematiga basaan fiirinaynaa. softwareka KiCad la dhahayana waa software lacag la'aan ah. meesha laga helana waa kana. waxaana samayn doonaa video u qaasa KiCadka sida loo install gareeyo iyo sida loo isticmaalo. waa haddii loo baahan yahay, marka fadlan commentiga kusoo qora haddaad taas u baahan tihiin. laakiin maanta annaga waa isticmaali doonaa softwareka kaliya un. marka softwareka sidiisaba markii la furo la bilaabo saan buu egyahay. waxaan u baahannahay waxa waaye project inaan samayno. marka waxaan tegaynaa file, new project. new project markaan tagno ayaa waxaan tegayaa hadda kaba soo qaada aniga waxaan joogaa documents, laakiin sida caadiga documentska waxaa ka geli kartaa meeshan. documents aad joogtaa. aniga waxaan jeclaa markaan project cusub sameeyo, waxaan jeclaa inaan u sameeyo folder u qaasa oo wax kasta oo ku saabsan projectigaas aan ku shubi karo. kan waxaan u bixinaynaa marka smart null. okay, gudihiisa markaan galno ayaa waxaan sameynaynaa hadda folderka cusub aan sameynay oo la dhahay smart null. kadib ayaa waxaan sameynaynaa projectiga oo KiCad oo aan u samayn doono magaciisa ayaan u bixinaynaa isagana smart null aan u bixinayaa. xasuusana ha u dhaxaysiinin waxa la dhahayo space mase meel cidla ha u dhaxaysiinin, waa inuu magacu isku dheganaadaa. marka waxaan dhahaynaa safe. marka waxaad arki doontaa laba file oo kuu samaysmay. kow horta smart null, intana waxaa ka arkaysa PCB waxa la dhahayo iyo tan kale oo la dhahayo schematic. schematiga maanta fiirinaan saan u dhahnay. schematiga anagu maanta fiirinayna waa gelaynaa. marka schematica la galo sambe uu egyahay. hadda cidla waaye. marka waxaan sameynaynaa waan meeshaana waxyaalaha dhan aan gelinaynaa.
so schematic horta maxaa waaye schematic wuxuu egyahay waa sawirkan sidaad uga jeedin waaye hadaad ku qortid electronic schematic design waxaa kusoo baxay sawiro unsaan buu egyahay macnaheedu waxa waaye waxaad haysataa simple haysataa simplekaasoo wax ka sheegaya hadda componentiga magacan la dhahayo simple client ka haysataa oo ah resistance mise cadaadis wax af soomaali lagu dhahayo kanna waxa waaye inductor kanna capacitor marka simbolyaashii sida isugu xirmi lahaayeen ama se filooyinkii sida isugu xirmi lahaayeen ku nashqadaysanaysaa okay midda kale hadda waxyaalaha aan isticmaali doono kan temperature sensorka saan buu egyahay afar luguu leeyahay marka taasna waa arki doonaa tan kale bluetooth moduleka saan buu egyahay meeshaan baan uga dhejin doonaa boardkan samaynayno kadibna waxa waaye UART communication waxa la dhahayaa aan u isticmaali doonaa si aan ula hadalno sida sawirkan aad ka arkaysin Arduino Nanogu waa kana midda kaleeto Bluetooth moduleka waa kana marka waxaan isticmaali doonaa labadan pin midna la dhahayo D3 midna D2 mise da saddex iyo da labo labadaasaan isticmaali doonaa ku isticmaali doonaa inaan kula hadalno mase wax u dirno meeshan mase wax ka akhrino midda kaleeto oo muhiimka ah waxa waaye pinka la dhahayo receive oo RX loo soo gaabiyey ma qaadan karo 5 volt oo kanina siinayo waxaa taas nagu qasbanaanaysaa sida meeshan aad ka aragtiin inaan samayno wax la dhahayo voltage division macnaheedu waxa waaye 5 volt toos uguma isticmaali karno maadaama kan markuu transmit soo sameeyo transmitka receive ku tegaya haddii 5 volt yahay kan waa gubanaya marka waxaan u baahannahay inaan yarayno marka intuu 5 volt ahaan lahaa waa yaraynaynaa markaase waxaan ka dhigaynaa 3.3 marka tan wuu awoodi karaa kii ugu dambeeyey oo la dhahayay switchku waxa waaye kan sawirkiisa meeshan ka arkaysin iyo intaba solid state waxa la dhahaya waaye mise meeshan say ku qoranta SSR solid state relay solid state relaygu siisa waxa waaye gudihiisa waxaa ku jira nalkaasoo markay current qulqusho ifaya markuu ifo ayuu wuxuu ku dhacayaa wax la dhahayo light receiver macnaheedu waxa waaye iftiinka ayuu arkaa iftiinka markuu arko waxaa dhacaysa wuxuu ogolaanayaa inay wax dhex qulqulaan marka sidaas darteed ayaan waxaan samayn karnaa iftiinkan baan ku xukumi karnaa kan marka waxaan samaynaynaa mar iftiinka qulqulaya mar waa ka diminaynaa mar iftiinka qulqulaya mar waa ka diminaynaa marka intaasaan u xukumi karnaa meeshaanina Arduino aan ka xukumaynaa okay dib ha u noqono intaan cagaarka ku jirta mase dashed green lines intaan waa intaan anagoo schematic ku sawiri doono kan asagoo qaas ah ayaan waxaan samayn doonaa filooyinkiisaan ku dhejinaynaa kadibna intaan ku dhejinaynaa laakiin kama mid ahan boardkan samayn doono marka schematic dib ugu noqonaynaa waxa koobaadan u baahannahay waxa waaye inaan samayno meesha powerku meeshuu kasoo gelayo okay so tan koowaad haddaan ka bilowno tan koobaadi waxa waaye meesha 5 volt oo kasoo gelayo marka waxaan isticmaalaynaa waxa la dhahayo terminal block oo laba pin leh terminal blockuna wuxuu u egyahay sidan buu u egyahay kan waaye meelna waxaan gelinaynaa filada 5 voltiga meelna groundkan gelinaynaa kadib ayuu wuxuu sii gudbayaa Arduinoga marka saan buu egyahay kanaan soo gashanaynaa waxaan samaynayaa marka waa dhanka kale aan u jeedinayaa waxaan samaynayaa rotate right click rotate dhankaan igu soo jeedayaa marka magacaan u yeelanayaa saan magac ugu yeelo waxaan samaynayaa right click kadib waxaan tegayaa properties halkaana waxaan ku qorayaa DC in wax kasta rabtaa u baxsan kartaa laakiin aniga DC in baa u baxsana saan u ogsoonaado waxaa soo gelaya marka meeshan waxaan u baahnaa kow inaan ku dhejino 5 volt kadibna si aan schematic waxyaalaha 5 volt ugu sii gudbo simpleka 5 volt kan ku dhejinaya 5 volt plus 5 volt waa kana intaan ku dhegsanaynaa
imaanaya kadib halkan ku dhegsanaa maxaa kaleeto 5 voltiga iyo ground simpleka okay hal midaa iga qaldantay taasoo ah waxaan u baahanahay inaan gediyo kan pinka koobaad uu ku dheganaada 5 voltiga waa gedinaya kadibna waan qaadaa intaan ku dhejinaya yes tan kaleeto ground simplekaan u baahanahay waxaan qori doonaa gnd macnaheedu waxa waaye ground iyadana waa kana marka hadda dc voltageka ayaa inta soo gelaya inta ayaan ka tallaalanaynaa meel kastaan rabno ka qaadanaynaa iyo groundkaas labadaas oo arduinoga iyo bluetooth moduleka iyo temperature sensorka power noo siin doona taas waa mid marka safe aan dhahayna waxa kale u baahanna waxa waaye kani waa kan dc-gu ka soo gelayay kii waxaan u baahannahay fiilada ac-ga mase fiila guriga soo gasha oo aan kala jaraynay switch gudaheeda ku bedelaynay kaas inaan soo dhigano kaasina sida kanoo kaleeta le waaye marka isagana copy aan samaynaynaa kadibna paste in waa kana marka magacaan bedelaya right click property ac maaha marka kan waa kan dc maahan aan dhihi rabay waa ac in waxaan samaynaa waxa waaye waxaan soo isticmaali doonaa waxaa la dhahaya global labels kuwaasoo meel kasta oo iskimaarigaa ka joogtaa bogag badan samaysid kulli way wada arkayaan macnada waa isticmaali kartaa mid waxaan dhahaynaa l1 meesha fiilada koobaad ka soo gelaysa midna waxaan dhahaynaa copy kadibna paste marka hadda waxaan haysanaa meesha ac uu ka soo gelayo iyo meesha dc uu ka soo gelayo marka hadda waxaan u baahanahay arduinoga inaan soo geliyo inta laakiin arduinoga ma ahan waxa anagu aan soo gashan laakiin meeshuu ku fadhin lahaa ayaan soo gashanaynaa macnaheedu waxa waaye hadhowta arduino guriga noo yaala ani midaa guriga ii yaala lugihiisa leh waxaan samaynayaa meeshuu ku fariisan lahaa ayaan ku sawirayaa marka waa isku dhejinayaa labadooda kadib dib aa idiin tusin doonaa sawirkiisa okay marka hadda waxaan samaynaa simple cusub aan raadinaynaa waxaan qoraynaa arduino leonardo waa kuwa badan oo ku jira laakiin annaga waxaan isticmaali doonaa kan lahay v2 oo midkan yar ah dadku badanaa kana yaqaanin kani waa weyn yahay runtii oo maadaama aad u weyn yahay meesha oo aan ugu talagalay ma noo gelayo intaan dhigaynaa marka arduino kani horta siisaba wax walba dhanba asagaa wata annaga waxaan u baahannaha unle waxa waaye inaan inaan ku dhegsano 5 voltigan kana marka copy ku samaynayna kan horta magaca waxyadiisa u dhawe kana sidoo kale labada waxaan u baahanaa waxa waaye labadan control c aan taabanaya intaan imanaya meel agteeda control b aan taabto si aan usoo dhigto okay so 5 voltigan intaan ku dhegsanaya roundkana meeshaan gnd-ga ku qoran tahay aan ku dhejinaya kadibna saan soo qaadaya lugta lahaya 4 iyo lugta lahaya 29 labadooduba ground waay marka groundka labadooda ku dhejinaya marka hadda waxaan nidhi shantan 5 voltkan iyo 5 voltkan waa isku dhegan yihiin laakiin see ku ogsoonanayna softwarekan waxay leedahay wax lahayo net highlight macnaheedu waxa waaye haddaad meel ku dhufatid wuxuu ku tusinayaa uu kalar qaas u yeelayaa wax kasta oo ku dhegan meeshaas okay hadda waxa ujeedin meeshaan kan iyo kanna isku dhegan yihiin ayagoon fiilo dhexdooda u dhaxayn laakiin magacaas 5 voltiga iyo simplekan ayaa wax u sheegaya inay isku mid yihiin tan kalena haddaan groundka fiirino hadda kan iyo kan haddaan fiirino
waxaan niri way isku dhegan yihiin. Okay, see ku ogaan karnaa? Sidoo kale aan ku dhufanaynaa kadib groundkii aan arkaynaa inuu ku dhegan yahay. Okay, so Arduino hadda waa haysanaa. Maxaan kaloo u baahannahay? Switchkii aan u baahannahay inaan soo gelino meeshan. Switchku asaga inta ka raadinaynaa symbolka switchka inta ma ku jira. Switchka magaciisa muxuu ahaa? G3BM. may inta male. Markaas kale waxaan u baahannahay symbolkaas inaan soo gashano softwarekan. Marka meelo badan oo laga helaa jirta, laakiinse horaan u raadiyey. Waa kana meeshaan lahay Snap EDA. Kuwan ayaa hayaan. Waxaa uun loo baahan yahay kaliya waxa waaye in log in la samaysto. Kadib waxay hayaan waa la soo qaadan karaa. Marka waxaan dhahaynaa download symbol and footprint. Footprintigu kan waaye. Kanna symbolka waaye. Marka waxaan dhahaynaa soo qaad symbolka iyo footprintiga. Tuweerkee baa haysataa buu leeyahay. Kuwa badanaa ku jira. Laakiin annaga waxaan haysanaa waxa waaye KiCad. Waxaan arkaynaa intaanu ka soo baxay. Okay, great. Kadib waxaan samaynaa waa iska xiraynaa kan. Iska xiraynaa. Waxaan tegaynaa downloads. Kadib kan ayaan aragnaa. Kan waxaan samaynaynaa meeshiisaan tegaynaa. Waxaan dhahaynaa inta ii soo dhig ama extract here. Inta iigu fur. Marka wuxuu ku samaynaa folder inta ay wax ku jiraan. Dib aan ugu noqonaynaa softwarekani. meesha waxa dhan laga xukumaa tegaynaa. Waxaan tegaynaa tools. Kadib waxaan dhahaynaa symbol editor. Symbol editor markaan taabano waxaa soo baxaya kan markuu soo baxo kadib waxaan tegaynaa reference. Kadib waxaan leenahay manage symbol libraries. kadibna waxaan dhahaynaa project specific. macnaheedu waxa waaye library projectigan qaas u ah. Okay, markaan taabanaynaa magacaan u baxsanaynaa. magaciisa wuxuu ahaa G3BM dash si fiican aan fiirinaya. wax yaraan qalday marka MB waaye MB dash 202P waa magaca oo aan markaan raadinayna ku raadin doono meesha uu yaallo. Okay, meesha uu yaalla waxay ahayd downloads. kadibna intaan tegaynaa. kadibna waa kana meesha uu libraryga meesha uu yaallaan tegaynaa. Okay aan dhahaynaa. waxaan dhahaynaa okay haddana bas wax yar waqti buu qaadanayaa. markuu dhammeeyo kadib uuna tusinayaa. Okay, marka haddaan raadino G3B G3MB MB waa kana bes marka dib aan ugu noqonaynaa. taabanayna kow symbol. kadib symbolka raadi G3MB waa kana. marka saan rabnaan u dhigi karnaa laakiinse soo qaad sidaan isaga dhigaynaa hadda. kadib labada magacaan soo qaadaynaa. waxaan dhahaynaa right click aan taabanaynaa. kadibna copy. kadibna right click paste. magaca dhankaan aan u gedinaynaa. L1ka inta isaga dhigsanaynaa. toos waa ugu dhejin karay laakiin marmarka qaarkood waxaa haddii waxyaaluhu xoogaa ay kala fog yihiin mise badan yihiin waxaa fiican waxaan la dhahay labels in la isticmaalo. wax way haddii fiilada inta kasoo qaadi lahaa inta waa ku dhejin karay. laakiinse waxoogaa markood wuxuu noqonayaa waxyaalo badan oo saa'id ah. laakiin sidaana ayaan doorsanaynaa. tan kale nalka waxaan nidhi waxa la dhahaya waa diode. diode-ku macnaheedu waxa waaye wuxuu leeyahay jahuu leeyahay. jahadu leeyahay jah waxaa jira wax uu kasoo qulqulaan oo ka galaan iyo dhanay ka baxaan. marka dhankan ayaa qulqul kasoo gelaya intuu ka baxaya.
marka meesha waxa ka soo gelayaan waxa waaye voltageka potentialka sarreeya waa inuu yaalaa hoosna potentialka hoose marka waxa waaye high to low meesha kortoo qulqusha waaye 5 voltigan soo qaadanayna haddana intaan soo dhiganayna marka haddaan toos ugu dhejino kan kadibna inta ground ku dhejino groundkana noo soo qaad horta kan iska saarno kana ujeedin somaa kalarkaasuu leeyahay kaas kalarkaas loo saraxo waaye highlight kiyaa la doorsanayaa kadibna meel cidlaha lagu dhufanaya wuu ka baxaya kabacdina sida waxaan looga baxo escape keyboardkaaga dhanka bidixda meesha ugu sarreysa ayaa la doorsanayaa okay marka haddaan saan kaba soo qaadana kan kana sidoo kale inta ku dhegsano intaa kaba soo qaad ku dhejinay maxaa dhacaya meeshaan camal hadda waxa dhacaya waxa waaye kow inta qulqulku kasoo batigaya meesha high potential ama high voltage kasoo tegaya inuu soo qulqulaya intuu dhex maraya nalku waa iftiimaya kabacdi ground u tegaya laakiinse maxaa waaye waxa ka dhici kara meeshaan waxa ka dhici kara waxa waaye qulqulku sidiisuba xad ma leh macnaheedu waxa waaye ma xadidayno waxaa laga yaabaa qulqulkan soo qulqulaya tirada intuu ka batay inuu gubo nalkan marka maxaan u baahannahay waxaan u baahannahay cadaadis mase resistance resistanceka maxaan samaynaynaa saan u raadin resistance waxaan tegaynaa symbols kadibna waxaan taabanaynaa waxaan ku qoraynaa meeshan r waa kan wuu noo soo baxay intaan dhiganaynaa okay waxaan jeclahay magaca inaa gudaha geliyo laakiin dhib ma leh waxaan taabtay e af soomaali 470 doorsaday laakiin saan ku xisaabsho waxay tahay haddaan fiirino data sheetka kan data sheetkiisii haddaan fiirino hadda ka horaan soo qaaday oo aan raadino qulqulka inta loo ogol yahay waxaa ku qoran waxaa loo ogol yahay ugu badnaan 20 milli ampere inay qulqusho haddii ka badan qulqulkaas oo qulqulo maxaa dhacaya nalka gubanaya maxaa kaleetase diodkuna soo u iftiimo wuxuu u baahan yahay riixdaasoo aan ka badnaan karin 1 volt kana 1 volt eber ilaa 1 volt inta u dhaxaysa laakiinse diodku asagu hadduu 1 volt u baahan yahay 1 volt uu qaadanaya laakiinse ka badan ma qaadan karo inta loogu talagalay ayuu qaadanaya laakiin kii diod haddii aanan cadaadis samaynin waxaa dhacaysa waxa waaye 5 voltigaas dhanba asaga dushiisa ku dhacaysa kadibna waxaa dhacaysa qulqulku xad ma yeelanayo ilaa uu ka gubto laakiinse waxaan doorsanaa anaga waxa waaye inta u dhaxayso la ku qoranta standard macnada waxa waaye 10 milli ampere iyo 1 volt marka see baan u xisaabinaynaa waxaan dhehanaynaa supplygeenu waxa waaye 5 volt waaye 5 voltgaas markaan ka jarno 1 volt oo diodka ku dhacaya waxaan haysanaa hadda waxaa ka soo haraya markaan u qaybino inta qulqulaysa oo ahayd 10 millivolt anagu u ogolaanayno waxaan helaynaa cadaadiska u baahan halkaas inaan dhigno cadaadiska marka wuxuu noo sheegayaa 400 oo ohm inaan u baahannahay laakiin 400 oo ohm waa 10 milli ampere dhiganta wax yar waa ka yarayn karnaa oo waxaan raadinaynaa standard value waxa la dhahayo componentyaasha siba resistance waxa la dhahayo number kasta ma la heli karo mase teeda kaletana mid kasta waxaa laga yaaba inaadan haysan laakiin adiga kan kuugu dhowo kuu yaala aniga waxa ii yaala 470 kaasaan isticmaalaya marka sidaas darteed ayaan 470 inta u dhigtay okay 470 kabacdi meeshaan ku dhajinayna okay hadda maxaa dhacay waa cadaadinay 10 milli ampere ka yar ma meesha ma qulqulayso nalkuna wuu daarmaya laakiin hal cilad kalaa jirta nalka ma xukumi karna weli wuu iska daarnaana maanta dhan marka maxaan u baahannahay waxaan u baahannahay inaan xakunno see ku xukumaynaa
saan u xakumno waxaan u baahannahay switch kaleeto switchkaas oo ah mid la dhahayo MOSFET nuucan anagu haysano waxaa la dhahaa 2 in 4 labo okay waaba noo soo baxayba 7 eber eber kaasaan doorsanaynaa kaa marka doorsan intaan dhigaynaa okay marka kan wuxuu u baahan yahay annaka inaan wuxuu u baahan yahay kan inaan annaka oo arduiniga ku daarno ku damino marka macnaheedu maxaa waaye hadda nalka waxaan ku samaynaa waxa waaye kan ayaan xakumaynaa kan markaan xakumno ayaa waxaan u ogolaanaynaa qulqul inta inuu dhaco marka qulqulka markaan rabnana waa ka joojin karnaa oo arduinigaan isticmaalaynaa markaan rabnana waa u ogolaanaynaa si aan u xakunno korontadan oo fiilada korontada oo AC-ga ah soo galaysa 230 mase 210 maraykanka camal tan laga isticmaalo marka kanina si uu si fiican noogu shaqeeyo oo aan u xakumi karno waxaan u baahannahay 2 wax inaan samayno ma 3 wax inaan samayno waxaan u baahannahay waxa waaye kow horta waxa la dhahayo pull down resistance inaan ku dhejino okay marka pull downku wuxuu samaynayaa waxa waaye arduinigan hadduu hallaabo mase voltage inta soo galeen wax ka hallaabaan si uu meeshan gateka MOSFET-ka uu ground uga dhigo marka resistancekan waxa waaye inuu noqdo number adi malaha meeqaan ku tilmaamaa 10 kilo ilaa iyo intaad haysatid saaidna inuu u weynaado ma ahan marka ground waa u baahannahay groundkan intaan soo dhiganayna yaraan kala sikinaya si aan iskula simo kuwan bacdina intaan ku dhejinaya marka labada wax oo kale aan samayn doono waxa waaye tan ugu horeysa horta inaan meeshan soo dhigano resistance kaleeto kaas oo qiimihiisu uu yahay horta sug wax yar baan rabaa inaan sameeyo halkaan tegaya kabacdi kan r aan taabanaya waa u gediyo kana sidoo kale waxaan jeclahay qiimahooda cadaadiska qiimihiisa gudaha inaan geliyo okay marka kan resistkan waxaa loo isticmaalaa waxa waaye si loo cadido qulqulka arduiniga ka imaan doona oo inta soo maray kaasina waxa waaye si aan u cadidno waxaan u baahannahay 10 ohm bis aan u baahannahay mase meelahaas camal adi wax ka yar 1000 ohm wax ka yar okay so hadda waan cadidnay sida kan loo daaro waxaa loo baahan yahay in uu voltagekani inta ka sarreeyo kadib qulqulaa dhacaya qulqulkani marka waxa waaye wuxuu noqonayaa kaba soo qaad voltageka inta yaaluu noqonayaa 5 volt gate to source voltagekuna wuxuu noqonayaa voltageka inta kusoo dhejino kadib kana wuu furmayaa marka qulqulka inta soo marayaan cadidayna bas halkaan dhiganaynaa fiilada oo arduino kasoo gelaya marka waxaan u baxsanaynaa magaca arduiniga meeshuu kasoo gelayo waxaan u baxsanaynaa arduiniga meeshuu kasoo gelaya labelkuu kasoo gelaya waxaan u bixinaynaa ct mase control aan u bixinaynaa ctl marka wuxuu leeyahay maxaa waaye ma wax soo gelaya mise waa wax ka baxaya okay dhankan waxaan doorsanaynaa wax soo gelaya un qiimo male waxaad doorsataadi laakiinse dadka way u fududaynaysaa inay dhaqso fahmaan waxaad sawirtay marka ctl-kani marka hadda control voltagekani xagee buu ka imaanaya arduino ka imaanaya lugtee buu ka imaanayaase okay waxaan dhahaynaa waxaan rabnaa inuu ka yimaado lugta saddexaad intaan soo dhigaya kadibna waxaan dhahayaa kan waa voltage soo baxaya dabana right click property
kadibna waxaan dhahay waxa soo baxaya waaye. Marka lugta saddexaad waa meesha oo soo diraysa voltageka aan ku daarayno kan. Marka Arduino pinka saddexaad waxaa kala doorsan karnaa eber mase 5 volt inuu soo diro. eber markaan soo dirno kan waa dansanaanaya, meeshan kan wuu switch waaye, switchkan wuu furnaanaya, kadib qulqulinta ma dhacayo. macnaheedu waxa waaye switchka halkaana wuu furnaanaya maadaama qulqul uusan dhicinin oo LED-gu aan uusan daarmin si uu kan u furo si uu kan u xiro. marka taasi waa tasa. hadda saa waxaa kuma lahayn kan waan samaynay. waxaa noo dhimani waxa waaye hadda inaan samayno midda kale oo ah inaan temperature sensorka soo dhigano meeshan. isaga magaciisu wuxuu ahaa DHT11 kana. DHT11 kani wuxuu u baahan yahay 5 volt si uu u shaqeeyo. wuxuu kaloo u baahan yahay ground u baahan yahay kuwanaakaas. kadibna waxaan u baahannahay meeshan oo input outputkan mase lugta informationka wada mase information aan usoo diri karno inta uga soo diri karno meesha ay ku dhageyso. marka taas waxaan doorsanaynaa D2 kana waxaan u bixinayaa marka kanaan copy ku samaysanayaa waxaan u bixinayaa kadibna waxaan u bixinaa temp. dib u soo celi kan ayaa copy ku samaysanaya. kadibna waxaan taabanayaa e temp magacaan u baxsanayo. waxaan ka hilmaamay inaan ka dhigo bidirectional, macnaheedu waxa waaye informationku intana wuu soo gelayaa intana wuu ka baxayaa. kan ayaa sidoo kale haddana copy ku samaysanaya intaan soo dhiganaya. saan u gediyo waxaan taabta R, laakiinse videoga aan samayn doono oo sida KiCad-ka loo isticmaalo ayaan si fiican uga hadli doonaa ka. okay, temperature sensorka waa haysanaa, kan oo switchkan AC switchkana waa controli karnaa. waxaa naga dhiman waxaa naga dhiman waxa waaye kan la dhahayo bluetoothka. kana wax yara inta dib isaga sikinaya. bluetoothkaasi intaa ka raadinaynaa kow. waxaan dhihi karnaa magaciisii wuxuu ahaa HC dash 06 inta ma lahan, laakiinse saan horay u aragnay waxaan samayn karnaa waxa waaye maadaama saan uu egyahay kanuu ahaa maadaama saan uu egyahay uu lugahan leeyahay pinherahan waxaan lahay uu leeyahay waxaan samayn karnaa female pinhera aan ku dhageysan karnaa boardkana saan kan isaga u gelino. marka waxaan u baahanaa le un waxa waaye inaan samayno waxa la dhahayo pinheraha sidiisana markii lasoo qaadanayo simplecana doorsanaysaa waxaa qoraysaa connect. waxaan tegaynaa connector generics kan afarta lahayaan doorsanaynaa saan u egyahay. kadib waxaan sameynaa dhankana u gedisanaynaa duuyo ogolaanayo. kana tagaya waa gedinaya. markaan gediyo magacaan ka bedelayaa kooda hore waxaan u bixinayaa BT oo bluetooth. labadaan soo qaadaa wax kale usoo dhaweynaya. okay, lugta marka inta haddaan fiirino waxa waaye lugta tan oo ka soo qaad afaraan dhahayna annaga. lugta afaraad waxa waaye BCC waaye. BCC-ga 5 volt aan doorsanayna. 5 volt okay. so
high supply-ga waxaa la hayo kor ayaa sida conventionku uu yahay high voltage-ka kor ayaa la dhigaa waxyaalaha low voltage-kana hoosa la dhigaa sida hadda groundka camal 0 volt waaye 5 voltiga waxaa la hayana mase high voltage waxaa la hayana koraa loo jeediyaa marka 5 voltiga waa kaasa waxaan kaleeto fiirinayna kanna waxaa ku qoran lugta saddexaad haddii la fiiriyo kan aan dhahno 4 kan 3 dhahno intaa kasoo bilaabayna 4 3 2 1 lugta saddexaad lugta afraad waan tan 5 voltiga ku dhejinay inta waxaa ku qoran marka 3 ilaa iyo 6 volt waa VCC gu noqon karaa groundkan ku dhejinayna hadda groundka hadda hoosaan u jeedinayna saan dhahnay kadibna groundkana soo qaadanayna inta ku dhegsanayna okay midda kaloo naga dhiman waxa waaye inaan sida kan camal samayno horta kan wuxuu tegayaa lugta waxaan ku tilmaamaa kan wuu ka gedisan yahay wax yar midkaan haysto aniga kan haysto transmitka lugtan waxa waaye transmit wire receiverkay tegaysaa marka arduinoga ani kan haysto receiverkiisu wuxuu ku yaalaa lugta la dhahayo eber so receiverkayga waa kana okay so magacyada horta ma koraan saga baxsan kuwan horta soo qaba mid kale labadan lugood okay waxaan ogaanaa marka lugta koobaad waxa waaye kan la dhahayo rx lugta kaleetana waxa waaye tx marka magacyadoodan u bixinayna lug koobaad waxaan dhahaynaa rx marka rx kani waxa waaye waa inaan ka sheegnaa kan magaciisa kaba soo qaad rx so magaciisa waxaan qoranaa hc 06 underscore rx waa lugta koobaad lugta kaleetana kan waaye laakiinse kan waa xoogaa magac baa ka bedelaynaa waxaa la dhahaa tx okay wakaasa kadoo dhankan waan haysanaa marka waxaan samaynaynaa un waxa waaye inaan waxa kale u baahnaa waxa waaye kan toos ma ugu dhejin karno inta maadaama markaan kan aan programming ku samaynayno labadan lugood ayagana aan isticmaali doono saan labadan lugood u isticmaalno marka waxa waaye inaan ku dhejino bahal dhahay jumper okay, so 2 row pin header kuwan aan samaynayna midka oo laba xaba ah marka jumperkan haddaan ku qoro kuwan camal ayaan ku dhejinaynaa sidaan camal u jeedin waxaan samaynaynaa markaan u baahannahay oo aan dhammayno programmingka dhammayno kanaan ku dhejinaynaa markii markii aan programming ku samaynana waa ka fujinaynaa marka waxaan u baahanaa mid oo laba line ah intaa tegaynaa waxaan qoraynaa con underscore o2 macnaheedu waxaa laba row waaye x o2 macnaheedu waxa weeye laba lagu dhifta labo yes okay aan taabanayna waa kana waxayr intaas ka dhiganaynaa kan hadhow dib ayaan ka kala habaynaynaa waxaan hadda waa wax dhan waa meeshaas kaga samaynayna laakiin kadib aan ka hagaajin doonaa marka magacaan u bixinayo magacaan u bixinayo waxa waaye kan waxaan u bixinayaa hadda prog aan u bixinaya macnaheedu waxa waaye meesha laga markii la programinayo waxaa la kala doorsanayo marka okay so midda kale aan samaynayo waxa waaye waa dhankan baan usoo dhankaan isaga gedisan sugbal see waaye
okay. 1 2 3 okay. siyaabo badanaa jira kuwan ay u tirsan yihiin horta marka horeeto midka aan haystaan fiirinaya. Okay. So waxaa ku qoran counter clockwise. Okay. Con O2 X O2. Okay. Counter clockwise iyo clockwise. Okay. So kanaan doorsanayna saan loo tirinay 1 2 3 4. kanaa marka iska bedelaya tirtiraa kan magaca ayaan ka bedelaya tagaya okay. prop midda kale markana timaado ayaa waxaan sameynaa kan horta iga qaad kan waxaan ku sameynaa waxaa waa gedinaya halkaan ku dhejinaya taasi waa midda kale waxa waaye meeshan ayaa waxaan sameynayaa arduinigan waxaan u bixinayaa horta inta rx a ku qoran intana tx laakiin magacaan ka bedelaya waxaan u bixinayaa kan maadaama arduiniga uu yahay waxaan u bixinayaa rx la isaga bixinaya intana waxaan u bixinayaa tx rx iyo tx okay rx iyo tx saa markaan u haysto kadib waxaan sameynayaa tx-ka waxaan soo qaadanayaa kuwana mid soo qaadana kanzan ii dheh waxaan soo qaadanaya waxaan niri saan hore horta u fiirinay waxaan soo aragnay meeshan haddii la fiiriyo kiawey kan haddaan fiirino waxaan niri rx-ka rx inta waxaa soo gelaya oo ka imaanaya tx-ka arduino ka imaanayo waxaan u baahanahay voltagekiisa inaan kala qaybino waana 5 voltiga toos ugu isticmaalna inta marka tx-kana soo qaadanayna intaa dhigaya kadib kan resistance-kan waa bedelayaa waxaan ka dhigayaa 1k mid kalaan soo qaadanaya adiga 2k ah marka ground waa u baahanahay simbolka soo dhaweysanaya kadibna waa kasa marka okay voltageka inta ugu badnaan muxuu noqon karaa haddii 5 volt inta uu yahay inta muxuu noqonayaa okay haddaan xisaabino waxaan dhahaynaa 5 volt markii lagu dhifto 2 kilo mise 2,000 loo qaybiyo 1,000 oo kan ah total resistance-ka total resistance-ka markii loo qaybiyo wuxuu noqonayaa 3.3 marka waa kasa marka waxa 3.333 waa inta aan ka filayno inta ayaa waxaan sameynaya haddana sidoo kale kuwaana soo copy garaysanaya inta soo dhigaya waan gedinaya markaan gediyo waxaa igu dheer yihiin so magacaan ka bedelaya waxa waaye kan halkaas ka imaanaya kanoo u socda 2 kasoo qaad saan iskaga bixinayna 2 tx kan u socda waa kaas kan jumperkana intaana loogu dhejinaya macnaheeda labadan fiilan isku qabanayna kana sidoo kaleeto markuu tx ka yimaado xagga tx ka markuu inta ka yimaado
wuxuu u socdaa rx-ka inta u socda rhino 2 rx waxaa soo dhaweynaya intaas ka dhiganaya kani wuxuu u tegayaa rx kan la dhahayo waa kana kan waaye control b gedi waa tx inta kasoo baxaya rx kana waa kan waa kasa so maxaa waxa dhacaya waxa waaye rx kani inta u socda tx-ka oo inta soo maraya tx waa kasa kaasuu tegaya rx kanina intuu soo maraya haddii aan ku dhejino jumperka kadib wuxuu isku bedelayaa rx to tx macnaheedu waxa waaye kan waaye kan oo aan ku samaynay kanoo tx ka imaanaya laakiin aan yaraynay voltageka uu soo oo kan helayo oo kasa okay kulli se u eg tahay waan dhammaynay wax kale kuma samaynayno intaas un le waaye yes intaas kaliya un le waaye marka waxaan u baahnaa waxa xoogaa yarisa inaan habayno okay so schematic hadda waa dhammaynay saa ujeedin meeshan waa meesha dcu ka soo gelayo meeshanna waa meesha arduiniga uu usoo dirayo control signalka oo kaasoo eber mase 5 volt usoo dirayo hadduu 5 volt usoo diro kan ayaa wuxuu sameynaya meeshaas iyo meeshaas ay isku dhegayso switchkan u xiraya macnaheedu meeshani ground ay noqonaysaa kadib qulqulaa inta dhacaya qulqulkan aan ku xadidnay cadaadiskan kadib LED-ga inta ku jira ayaa iftiimaya markuu iftiimo intuu ku dhacaya kan markuu iftiimo kadib waxa dhacaya switchkana xirmaya nalka guriga oo inta soo galaya fiiladan kala gooniyo inta soo galaysa ayaa isku xirmaysa nalkaasuu ku iftiimaya bluetoothki waa kana modulka inta gelinayna kadib markaan gelino toos ayuu meeshan u abaaraya qaybtana waxay qaabilsan tahay temperature and humidity sensorka kaas oo ayadana ka xakumayno ama ka aqrinayno wuxuu yahay qiimaheedu wuxuu yahay arduiniga lugtan saasuu ku dhammaaday kan okay hadda designka waa dhammaaday qalad yaraa dhacay meeshan ac switchka waxaa dhacay waxay ahayd fiilada guriga soo galaysay oo aan laba u kala goynay waan ugu talagalnay isku dhejiskeeda inaan ku xakunno switchkan dhinaca waxaan u bixinay L1 oo inta dhex maraysa kadibna switchkii intuu yaalla qaybta kaleeto magacii waa hilmaamay inaan bedelo qaybtan waxa waa inaan u bixino L2 dhankaana sidoo kale markaas waxay noqonaysaa laba fiilo oo kala gedisan labadoos kuma dheganaanayaan maadaama saan horey u aragnay markaan highlight ka fiirino hadda kan markaan fiirino labadan bes isku dhegan dhanka kale markaan fiirino labadan isku dhegan marka qalad ka dhacay kaas uu ahaa marka hadda kiina waa saxnay bes marka designka saasuu ku dhammaaday
wiigga dambe waxaan fiirin doonaa insha allah sida nashqadan oo schematica loogu bedelo PCB taas oo kadibna oo lasoo samayn karo si oo wax qalabyada dhan loogu dul dhegsado sida loo sameeyo dib aan ka arki doonaa wiig kaloo kusii xigana insha allah sida kan loo programmeeyaan arkaynaa oo waxyaalahan functionalyaashan dhan aan u baahannahay uu noo samayn karo inta inaan wax ka aqrin karno waxna diri karno intana inaan aqrin karno temperature sensorka intuu yahay kanna aan xukumi karno marka intaasaan ku joojinaynaa maantay horta safe dheh